أنا waxaan ahay Yusuf cilmi col haye gudoomiyaha tuulada toqoshi waftigan ballaaran ee uu noo hogaaminayo safiirkeena jabuuti cabdi fataax saciid axmed aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada toqoshi ku soo dhawaada degmada saylac iyo gobolka salal wax qabadkiina waan u baahanahay annagu dad cid wax noo qabanaysa waan soo dhaweynaynaa aad baan ugu baahanahay cid nooga baahi badan ma jirto wax qabad aad baan ugu soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa waftiga jabuuti ka yimid safiirka Soomaaliland waxaan leenahay wad mahadsantihiin waxaan u baahanahay wax qabad soo saar baan u nahay waxaan doonaynaa cid wax noo qabato na garab gasha biyaa wadanka baabiyay dadku wax soo saar buu leeyahay taasaan u baahanahay cid na garab gasha. So as I know as I see this site is very exciting for making salt and for imagining an industrial salt work with a high production, because here you have the two main ingredients, the three main ingredients that are needed for sea salt, which is the sun, which is the water, the sea, and which is the wind. So once you have these three ingredients, you can produce a great salt and make a great salt work. So I'm very proud to be here and honored to be here with the delegation, with Mr. the Ambassador, with the Minister in Djibouti that I knew, and I hope that we can do and the first project and then do a very good job. Thank you. halkan jooga safiir Cabdi Fataax oo runtii nin had iyo jeer jecel horumarka dadka waliba safaaradda uu joogo Djibouti noo joogo deegaanka uu ah dariska saylac ilaa iyo loo yacdo ilaa iyo toqoshi had iyo jeer aan ka daarin suu dadkiisa horumar ugu soo jiidi lahaa mar walbana noo keena jaanisyo badan oo inay ka faa'iideystaan doonayaan waad maqlaysaan kambaniga shirkadda halkan waxa yaala runtii uu ka hadlay uu ka helay laakiin wuxuu sheegay dhibta iyo dhibaatada ay leedahay maanta idin haysata emaan baawarka haysta gacanta wada xumada waxaan dadka ugu bishaareynayna ama aan u sheegaynaa had iyo jeerba in ay diyaar u noqdaan wixii dalkooga nimcada Ilaahay siiyay ka soo baxaya sidii ay ugu soo dhaweyn lahaayeen gacmo furan niyad furan qalbi furan ay ugu soo dhaweyn lahaayeen kambaniyada jecel waxaan marayna waa markii afraad oo kambaniyo kala duwan ay yimaadaan oo safiirku waday marka gacmo furan ma ku soo dhaweynaynaa in kambaniga safiir Cabdi Fataax waxaan leenahay jazakallahu khayr alta in ka badan ba waa laga sugayaa. bismillahir rahmanir rahim runtii saa uu sheegay gudoomiye waxa weeyaan halkan waxaynu nimid sanadkii markaan soo dhaafnay aniga iyo wasiirkeena Maxamed Muuse wasiirka biyaha wasiirka Djibouti Maxamed Cawaale idinkii ogaa teamkan waxaan sugeynay Talyaaniga ka yimaadeen 4 bilood xanuunkii COVID-19 ka waa xiray iminkana mashruuci runtii waxaan doonay project ugu horeeyay labada madaxweyne si ku heshiiyay 26 Oktoobar sanadkan ka soo gudubnay 2020 in mashaariic laga fuliyo kan ugu horeeyay kii milixda kii waxa ku xigay doona saylac biyaha lagaga xidhayay kii dekada marka imkan waa mashruuci ugu horeeyay waxaan jecelahay sida ugu dhaqsaha badan imka surveying bay sameeyeen teamka dhowr cisho imka joogayaan halkan waxa la socda team kale oo waxa Djibouti ka yimid iyo team kale Soomaaliland ka socda surveying bay qaadayaan halka baawurta soo galay sida ugu wanaagsan loo moogtahay loo milixda loogu sameyn lahaa hadday noqoto cadceedda iyadoo la isticmaalayo iyo generators isku jira waddo in la helo marka hore dee baawurta soo maraan marka runtii waa bilow marka insha Allah iyagu iga yimid waxaan rajeynaynaa insha Allah 2 bilood gudahood in mashruucan uu ku bilaabo kan milixda ugu horeysa hadii la helo soo qorshaha uu yahay hadii la helo insha Allah dadsan ku tala jirnaa haddana wax kale aanay soo bixin saan horeba way rabay 4 bilood bay iyagu qodooda ku qaateen wadankooda ka soo baxaan shalay waan yimaadeen Djibouti maanta waan aniga deernimid gudoomiyaha maxaa hiday sanad soo dhaweynaya iyo gudoomiyaha kale ee toqoshi iyo teamka kale runtii halkan jooga maanta la socda iyo teamka kale Catherine iyagana ka socda Djibouti oo runtii topographic sameynaya iyagana la shaqeyn doona teamkan Talyaaniga ka yimid marka runtii aad baan ku mahadcelinaya waan mahadsantahay sida wanaagsan oo soo dhaweysay